maamulka degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah uga jawaabay cabasho in muddo uga soo yeedhisay qaar ka mid ah dadka degan agagaarka xarunta darbijiifka dadkaasi oo in muddo ku cadibnaa isla mar ahaantaasina aan haysan gaadiid gaar ahaan basas ay raacaan maamulka degmadan ayaa si rasmi ah u soo raray basaskii xaafadda istaanka dhagax barkato taasi oo istaan rasmi ah looga dhigay agagaarka xarunta darbijiifka ee xaafadda Maxamed Mooge munaasabad kooban oo ay ka soo qayb galeen badi bulshada xaafadani ku nool ayaa lagu qabtay xarunta noqonaysa istaanka rasmiga ee basaskani ay haatan ka rakaabsan doonaan ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta iskaashatada basaskani oo si weyn u soo dhaweeyay bulshadan isla markaasina sheegay inay ku faraxsan yihiin inay halkan loo soo raro waaxda Maxamed Mooge nimcayeed oo inuu mahadnaqayna alxamdulillah ilaahay mahadaale waqcada wanaagsanay saakana keeneen ay nagala hawl galeen ay nala qorsheeyeen ay nagula deegaaneen aad iyo aad u mahadsan iyo maamulka kaleba alxamdulillah annaguna xaafadda waanu camirnaa mar haddaan nahay baska hadalka Cabdullaahi baa dhameeyay waxba ku sii reebay xaafadda waanu camirnaa ummadda waan soo jiidanaa bulshada aad iyo aad baan u soo jiidnaa waan u adeegnaa hariya habeenba iyagu baan guriga garaacaa haddaan baska la ugu jirnaa marka xaafadduna baska way u baahnayd bariyahan baa ahmiyadeeda iyo arrinka iyagu waxa sidii aanu xaafadda baska u geyn lahayn baawarka iyagana waxaan isugu geynay inaanu geyno maamulka waaxda dawladda hoosana aanu kala tashano arrinkaasi si wanaagsan buu noogu qasoomay anigoo gudoomiyaha basaska xaafadda waxaan leeyahay aad iyo aad baa idin noo soo dhaweysay waan mahadsantihiin annaguna aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waynu wada shaqaynaynaa aad iyo aad bayn hariya habeenba xiriirkeenu wada soconaya ka maamulhaana haddaanu nahay xalaaliyo wixii annaga xagga iyaga cabasho ama qorshe ka yimaadana dee annaga ka mas'uulo xaafaddu nagala soo xiriiraysa waaxduna dee aad iyo aad bay u mahadsantahay iyaduna way lagu garab joogtaa mar walba annagu bay qorshahaan iyo mas'uuliyadeedba nagala xisaabtamaysa qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa si isku mid ah u bogaadiyay isla mar ahaantaasina u mahad celiyay maamulka dawladda hoose gaar ahaan kan degmada Maxamed Mooge oo ay sheegeen inay si rasmi ah uga jawaabeen baahi in muddo ay qabeen annagu darxuma badan baan haysatay bas la'aan oo socoto dheer lug iyo lacag baanu hay lug iyo lacag hadaan hayna maanta ilaahay baa noo soo gacan galiyay 12 goor baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inta qorshaha la galay iyo qorshaha nologu soo dejiyay magaalada noo soo korodhay intaba baan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin ha korodho hayaana ka noqonay annaguna dhibaatooyin badan baan qabnaa maanta Maxamed Mooge hadaanu nahay de waan ugu tagaynaa halkii joogaan ugu tagaynaa maanta si gurigii bay nooga yimaadeen waanu ku mahadnaqaynaa 12 goor hayba mahadaale idinna mahad baa leediin xaafaduna mahad bay leeday inamada basaskana mahad bay leeyihiin in badan baanu hooyo halka baslaan iyo gaari la'aan ku jiray sanadkii 13 baa annaga imika noo bishay maanta haday dawladayadii iyo ragayagii iyo baslahayagii isu kaayo waafaqeen oo isaaka noo yimaadeen mahad weyn baanu naqaynaa ilaahay baanaanu mahadda u naqaynaa idinkana waanu idiin naqaynaa waxa weeyaan danyarta halka yeela ayaan ugu hayn Maxamed Mooge ka tirsan ay magaaladu dhaaftay bas la'aantu aad bay wax noogu haysay anaga horta runta marka la eego dumarku intay soo qaataan alaabta ayay u basku dhigi jiray de halka magaranaysa Dr. Ismaaciil iyagoo dabadna wixii magaranaysa jabay bay soo qaadan jiray alaabta mar haddii ay basaskii noo soo dhawaadeen waxa horta aanu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore marka xigta dawladda hoose ee sharafta leh oo hogaaminaysa inta nimco iyo Cabdullaahi Hirad ay hogaaminayaan iyo qolada baslayaasha oo gudoomiyuhu ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeen ku xigo iyo magaranaysa hawlwadeennadiisa kale waxa weeyaan adeeg guustaba socda mar hadduu adeeg guustaba socdana marba waxba ku imanaya marka waxa weeyaan nimcada ilaahay oo nusqaanteeda Allah inaga hayo Cabdullaahi Hirad oo kamid ah maamulka degmada Maxamed Mooge oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ka jawaabista baahida degdega ah ee ay sameeyeen maamulka degmada Maxamed Mooge maanta waxaan isugu nimid basaskii degmada Maxamed Mooge ka shaqeyn jiray oo dadweynaha halkan deganay ay baahi weyn u qabeen inaanu isla garanno annaga iskaashatadii basasku dadweynaha baahida weyn u qaba basaska in loo keeno goobtan taasoo maanta ilaahay noo suurta geliyay waxaan halkan uga mahadnaqayaa iskaashatada basaska oo
juhdi weyn gelisay sidii arrintaas markay dadweynuhu nooga soo cawdeen inay degdeg iyaguna uga jawaabaan oo daraato kale aan ka wada hadalnay arrintaa maantana aad aragtaan inay basaskii goobtii taagan yihiin waxaan leeyahay dadweynihii cabashada qabayna wataasoo waa aragtaan basaskii waa laydin keenay dee saa ula dhaqantaan unbaa leegayaa qolada basaskana waxaan leeyahay dad baahi idiin qabay oo aad idinku baahnaa ayaa u timaadeene adeeg hufan siiya si fiican ula shaqeeya waxaan leeyahay iskaashatadu wax weyn ayay u tahay inay halkay kolba dadweynuhu gaadhaan ay gaadhsiiyaan adeegan basaska nimco cali cumar gudoomiye ku-xigeenka degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa carabka ku adkaysay in ujeeddada ay halkani u joogaan ay tahay in si hagar la'aan ay bulshada ugu adeegaan tanina ay ka mid tahay baahidii bulshada tani ay qabeen oo markaasi ay si degdega uga jawaabeen waxa ay u mahad celisay maamulka basaslayaasha iyo weliba dadweynaha xaafadani ku nool gudida baslayaasha ee cabashadii markay dadweynuhu noo keeneen markiiba ka soo jawaabay ee sida hufnaanta leh ee kartida leh ee xilkasnimada leh isku xilqaamay ee maamulkii degmada markiiba adeecay hawshii ay ula yimaadeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha xaafadda degan oo aad iyo aad u soo dhaweeyay oo baahi weyn u qabay hawshan oo muddo kooban aanu ka shaqaynaynay oo hormuud u ahaa xogayaha degmada maxamed mooge iyo gudoomiyaha nabadgelyada ee degmada maxamed mooge taasoo ay si fiican u soo abaabuleen ilaahay baa mahadle maanta noo suuro geliyey basku waa adeega koowaad ee bulsha hesho xaafadna ku magaalowdo dadkan waxay ahayn dad jilicsan oo danyara u fara badan halkan aan maanta baska u soo rarnay basku muu soo gaari jirin hargeysa maanta halkeegu bas gaadhaa unbaa la yidhaahdaa de biyaha inta heshaa way iska yar tahay noloshuna biyaha iyo transportationka kow ka ah biyo awalba may helahayn insha Allah ilaahay baa u keeni doona iyagana oo maba haweysanayaan bariyahan inay gaaraan laakiin insha Allah way heli doonaan maanta waxay heleen baskii noloshii qayb ka mid ah bay heleen waa dad aad iyo aad ugu baahnaa oo danyar u badnaa xaafadana waxaan rajeynaya inay ku magaaloobi doonto annaguna waxaan ilaahay ugu mahadnaqanaa in ilaahay noo suuro geliyey cabashadoodii maalmaha kooban ahayd ay noo soo gudbiyeen hooyooyinkii faraha badnaa ee xafiiska noogu yimid waayeelkii rag iyo dumarba iskugu jiray kuwaasoo cabsi weyn ka qabay habeenkii markuu gobolku dhaco yidhaahda xaafad kale ilmuhu seexda haddii uu naga maqan yahay ama ay hooyadu seexataa isla maantana uu gurigooda hortiisii uu baskii u soo maraayo iyagoo uu baskii u istaagi jiray doctor Ismaaciil iminkana aynu keennay xarunta darbijiifka dhinaceeda ilaahay bay mahadoo dhan u sugnaatay cid kastoo ka soo shaqaysan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka xaafadana waxaan leenahay adeega bulshada maanta aad hesheen oo waxa ilaahay loogu mahadnaqo baskaas soo dhaweeya si fiican u la shaqeeya waajibaadkiina ka guda baslayaashana waxaan leenahay dadka jilicsan ee u timaadeen ee adeeg maanta soo gaaray waa dad xamuun u qabay oo baahi u qabay oo adeega aad iyo aad ugu baahnaa dadka si fiican oo ixtiraam leh oo sharaf leh oo milgala ugu shaqeeya dirbu waxa si weyn loo dareemayaa isbedelka muuqda ee maamulka degmada maxamed mooge uu ka samaynayo gudaha xaafadaha ku yaala degmadaasi maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho hargeysa واو اسبوعك يسوي في عيسى صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عاد وش بصير waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato